dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkaygiyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkeeniyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayuulay dhagaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayuulay dhagaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa maxkamadda sare ee dowladda Puntland maanta oo maalin Isniin ah taariikhduna tahay 19 bisha 8 2019 maalin Isniin ah taariikhdu ku beegan 19 bisha 8 2019 maxkamadda sare ee dowladda Puntland waxay u fariisanaysaa fadhiga labaad dacwad ciqaabeedka cabashada ka soo wada qaateen tacafaansanayaasha kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Wasame ina Faadimo Cali 24 jir ah ku dhashay Hargeysa qareen u yihiin qareen Mustafa Maxamed Jaamac qareen Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Axmed Salaad Maxamed Cabdishakuur Maxamed Dige ina Khadiijo Maxamed 46 jir ah ku dhashay Muqdisho qareenna uu yahay Cabdirasaaq Maxamed Faarax kana soo qaatay xukunka tirsigiisu yahay Maara Isbaaro Gaana Isbaaro 115 2019 kuna taariikhaysan 3 bisha 6 2019 kana soo baxay maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayna dhinac ka tahay marxuumad Caaisha Ilyas Aadan iyo xafiiska xeelaliyaha guud ee dowladda Puntland kuwaasoo ku wadaysan qodobada kale ah 332 oo qodobkaasoo macnihiisu yahay khatar gelin ammaanka guud ee dalka 398 oo tilmaamaya kufsi 401 oo ka hadlaya afduub 434 qodobkaas waa qodobka ugu culus oo ah dil oo qodobada ku eedeysan yihiin qodobka 440 isaguna wuxuu tilmaamayaa xagga xeerka dhaawac marxuumadda inta noolay dhaawac loo geystay qodobka 468 tahdiid oo aad ay u soo jeedisay xeeraalinta dhammaan qodobada aan soo sheegay waxay ku qoran yihiin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxay ku eedeysan yihiin nimanka magacyadooda hore u soo sheegay oo racfaanka ay u soo qaadeen qareemadii ayaan magacyadooda soo xusnay qodobka 4 iyo qodobka 7
xeerka kufsiga dowladda Puntland maxkamaddu way furan tahay dacwadana waxaa bilaabaya cid soo qaadatay cabashada maxkamadda sare dil jooga waa cabasho. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. digwa barbaarsho waa dhalaan gardaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee digwa barbaarsho waa dhalaan gardaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee وانا dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo nasigana ma dhaxlaayo guushe وانا dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo nasigana ma dhaxlaayo guushe dimir fayowlay dhegaysta dib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dimir fayowlay dhegaysta dib magaya haweenku ee ka dhowra ودغنك باسلو بسم الله الرحمن الرحيم. محكمة waxay mudaysay dacwadatan 22 bisha oo ku beegan maalin khamiis ah. Maxkamaddu way xiran tahay. sida la socotaan mudanayaal maanta waxaa la geystay jalsadii labaad kiiskii kufsiga ahaa ee ku eedeysnaayeen 3 sano aan laba ka mid ah qaranada ahayn sidaas darteed kiiskii dib baa loo dhigay maanta xukun iyo go'aan lagama soo saarin maxkamadda sare sababtoo ah kiiskii waa balaadhay farciyo yeeshay waasna wajh hor loo soo baxay sidaas darteed maxkamadda saal soo taan maxkamaddu waa 3 maxkamadda darajada koowaad maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda sare maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda rafcaanku waxa weeye oo mawduuci oo qofka markhaatiyaashii meelihii wax ka dhaceen baa la tagaa haddii uu yahay waa la soo markhaati waxaas laakiinse tan waa qaanuuni oo waxay fiirisaa qaabka maxkamadii hore wax u soo mareen sidaa ogtihiin annaga laba baan u hayn laba nin baan laba eedeysnaan u qaranno ahayn oo walaalaah eedeysanaha koowaad cabdifitaax cabdiraxmaan iyo cabdisalaan labada eedeysna mid ka mid ayaa qirtay midna kuma jirin oo kiiska awalba ma gelin iska kaliya waxaa loo soo qabtay inay walaal ahaayeen isku dhiyaan ahaayeen iyo isguri deganaayeen kiiskana si la sheegay meesha ka dhacday gurigiiba kama dhicinba awal lagu tuhunsanaa ee guri kale leeyahay waa ka dhacay dad kalena ku jira leeyaan walka ka magacaabay waxba gama gelin dawladda taala kiiska maxkamadda waxa orana maxkamadda sida sare waa qaanuuni saan idin sheegay qaabka wax loo soo maray bay fiirisaa qiimaysaa iyadoo markhaatiyaashii iyo si wax u dhaceen iyo wixii ma baadho oo dib u baadho waxaan malaynayaa dadweyne badan ka aragtay maxkamadda darajada koowaad rajada qabnaa waxa weeye kiiska la jabiyo ninka muwakkilka iyaga sanaha saddexaada oo waxba sameyn dambi gelin qiran ku cadeyn markhaati aan loo hayn in loo socoliyo xuquuqda in loo socoliyo sharaftiisii iyo sumcadiisii iyo xorriyadiisii isla markaana waxaan ka rajaynayaa maxkamadda inay u xukunto magdhow maadaama sharaftiisii la dilay sumcadiisii la dilay karaamadiisii la dilay intaa iska xirnaa oo si wax dambiina gelin kaliya waxaa lagu eedeeyey waxay walaal yihiin eedeysanihii qirtay dambiga أنا أقول لك كيف سجلت عندي الكأنجي. لا أي بلو محكمة هي كلا دوانا صومرتين واحد إذن كقدو ده سنك أبو كاتي الحين إن إذا رجع القريمة دوتين سنة هوش أنجلي وحين كعد مش وقت هذا
qaybtood inay gashay qaybta kalena la gashay oo waliba dil ka geysteen idinka ma la macno tahay inay xataa idinka naftirkiina waxba idin cadeynaa madax dhulka la dhacayseen ما أنا قلنا ما أنا واحد نشتغل ويقف كنا نو قرك ما هي إنه ما نخسرنا وأنا كليه دليل إنه أفتح وشيء ويمرك هذا أنا وكيس كده يقف كنا وجلس كتر عنا هذا بقى لقى جوي حد دون ولا لكن سوما أنا تلقين وما نارن إلا واقع السماء فقرين عن حاشا الله أنا قلنا صرت أنا حقي عشان له أنا قربني حنا كسر الحمد لله رب العالمين هدي ما أنت الحمد لله رب العالمين عاشا ودمتي ولا شيء نهاية حق هذين لهرة والحمد لله إن عبد السلام حريد فلوس عليه حق السؤال أنا فاد اللي قد ينو الحمد لله رب العالمين. هذا عبد السلام بكذا أنا كي كلا سياق استوي دوق كيف